kiiska ikraan tahliil adigu ma joogto وجويس waayahay inta badan waxyaabaha dadka ku soo dhacaya oo waliba maray maxkamad ay ama garyaqaankood inta badan sheegay oo lagu eedeeyo waxa kamida ama niisa lagu eedeeyo kiiskii ikraan tahliil bal waxaad nooga warantaa kiiskii ikraan tahliil soo u dhacay وما ستة هرتو هو كيس مهم وايو كيس كاسو وحو كدوين كيساس كي دعي أما دباتوني كي هيادة حبنا هذا لفدبرك وهيادة سو جاري وحو أقدونا وحو دعي حلي حساسية وطلقو وكجر مرحلة أدو عدك تاسع كلفتي إنو كيس كانو إنو سامين بدن إنو يشو ما هنا يعني ما أمساني كم الدوانو ويلش يقبلها صوماليات وحبرتي iyagoo nool oo caafimaad qaba lixaadkooda uu taam yahay u bareeray inay naftooda iyo maalkooda inay u huraan dalka dadka Soomaaliyeed markaan gudaha kale marka kiiskaasu aniga xilligaas waxaan madax ka ahaa qaybta guud ee isku gobolka Banaadir gabadha ikraan tahliilna waxay ahayd gabar micno badan ugu fadhiday hay'adda nabad sugidda saameyn badanna ku lahayd hay'adda aniga marka waxaan iga soo gaartay maadaama anaga waxaan ku mashquulsanayn xoriyadihii dalka 26 Juun iyo 1 July waxaan rabaa marka kiiskaas wuxuu aniga iga soo gaaray maadaama aan madax ka ahaa gobolka in 28 bisha la waayay ikraan kadibna maadaama anigu aan gobolka joogay taliye hay'adana oo wadanka ka maqnaa in aniga la xil saaray inaan kiiskaas inaan baaritaan maadaama hay'addu ay leedahay xarumo baariseed in gal la furo oo baaritaan la sameeyo baaritaan badan aan sameynay xiriiro badan aan sameynay dadkii aan asxaabta noo ahaa iyo guud ahaan hay'adda iyo laamaha kale dowladda iyo guud ahaan dowladnimada oo dhanba shaqooyin badan aan ka qabanay kadibna waxaa laga furay galbaariseedkiisii oo dhammaystiran waxaanu la wadaagay madaxdii hay'adda xilligaas joogtay markii uu dalka kusoo laabtay taliye hay'adda kadibna kiiskan waa la siyaasadeeyey oo la socotaan wadiiqooyinka uu maray waxaanu ka shaqeynaa marka in maxkamadda ciidamadu inay iyadu ay soo farageliso oo ay nagala shaqeyso maadaama annagu aan accesskii iyo aqoontii iyo wadiiqooyinka loo mari karo annagu aan hayno guddi baariseed oo maxkamadda ciidamada iyo hay'adda ayaa waxay isla baareen kiiskaas asagoo dhammaystiran oo wax allaale wixii la sheegayay oo documentary maxkamadda ciidamada way yaalaan hay'adda nabad sugidda way yaalaan wuxuu marka ka duwan yahay kiisaskii kale waa kiis gal leh oo laga garan karo laga arki karo intii wado oo soo maray marka micnaheeda ma dhamaystiri karo waayo yaa dilay marka gabadha yaa dilay xogta anaga aan hayno waxaan ku shaqeynayna waa xogta aan hayno waxa dilay argixisada oo u sababaynayo dagaalkii iyo wadiiqooyinkii naga dhaxeeyay dowladda gaar ahaan hay'adaha amniga gaar ahaan hay'adda nabad sugidda argixisada waxaa jira dagaal muuqda iyo dagaal aan muuqan oo naga dhaxeeya marka gabadhaas xogta aan hayno waa inay afduubeen kadibna ay dileen xogta aan hayno anaga sidaas aan la sheegayso lana wadaagnay madaxda dowladda gabadha waxaa la leeyahay meesha ay deganeed waa meel nabad sugidda oo aysan al-shabaab iyo tiimkooda soo geli karin ayaa la yidhi ma fahamtay marka ayna adag tahay xitaa in laga soo gudbo xaruntana waxaa la yidhi iyadoo sii gelaysa waa la arkay marka ma halkaasaa shabaab imaan kartaa oo kala bixi kartaa gabadha وماسطة هرتو وحل ليه هي أما الشيء هي أما المغلى هرتو حارونك قبل أي معنتها أنت كلو بين أنا هرتو وحولي بقى وحنا سمينا بارتان لكن ما شيء مرتي يو مال لجوتي أنا أن أجنهي أما أن أجين حبيرتي مجرتو وصح صون حياة يدقنت يعني جودي هذا لكن waxaan gabadhan 26 Juun ayaa u dambeysay waxaan la tabay oo baaritaan la sameeyay oo la isku wareeray oo muddo la shaqeynayay annagu siyaasadeynta iyo banaanka waxa ka socda ka hor hay'adda waqti badan gelisay gabadhan inay dalka ka baxday inay meel ay laga watay iyo meel ay martay cid og habayraatay oo jirtaa ma jirto kaliya inay gabadhu maqan tahay
baaritaan la sameeyey xogta la helana ay heeday inay afduubeen ay u gacan gashay shabaab lagu yaqaano waxaa ka mid ah in qofka ay dilaanna ay ka run sheegaan qofka aysan dilinna ay dhahaan ma aanaan dilin al-shabaab waxay tiri anugu gabadhaas ma aanaan dilin marka xogtiina ma ku darsanteen inaan in ay al-shabaabba sheegtaba gabadhan annaga shaqo kuma lihin dilkeeda waa maadsan tahay horta cadow aad dariirsan tihiin sifo kasta uu kugu dhibaatay karo wuu ka shaqaynaa argixisadu inay tiraahdo annagu gabadhaas ma dilin waxay ka arkeen dantooda micnaheeda maaha inaysan gabadhi dhibaateyn micnaheeda maaha inaysan dowladnimada kadib ay dhibaateeyeen ay xubno hay-adda ka tirsan ay afduubteen ay kaxaysteen ay geysteen meelaha ay ka taliyaan waxaan rabnaa horta inay yidhaahdaan annagu maana dilin maana arkin waa qayb ka mida dagaalka ay nagula jiraan xaruntu ma leedahay iyo meesha sooma lahan CCTV camera sooma lahan oo computer ka shaqeysa waa maasata horta way leedahay iyo say u shaqeyso iyo intii ka qusaysa kiiskaas isagoo dhammaystiran oo documentary oo gal fayl ah ayuu wuxuu yaalaa ciddii rabto inay ogaato maxkamadda ciidamada gacanta ku hayso oo maxkamadda ciidamada qalabka sida taliyaha cusubna uu hayaa marka faahfaahin inaan ka bixiyo mar rabo meeshaasaa lagala xiriiri karaa hooyadii dhashay iyo aabbihii dhalay iyo ehelkoodu waa kuwa idaacadaha ka ooyinayey idaacadaha ka qaylinayey cid la hadashay oon maxaa diiday in lala hadlo la qanciyo waalidka iyo ehelka waa maadsan tahay horta waalidka iyo ehelku dadka way ka duwan yihiin waayo waa waalid iyo ehel xanuun gaara ayay qabaan oo ummadda soomaaliyeed ay dareemi karaan waxaan rabaa horta aniga ka yaasiin ahaan xiriir waa la sameeyey bilaawga kiiskan ilaa gabadha nolosheeda iyadoo joogto ayaan xiriir fiican aan lahayn hooyada iyo waalidka xiriir aan lahayn in ay maqan tahaba waxay naga soo gaarta annaga waalidka ma in annagu maanan ogeyn oo annagu olku baarlamaan nahayn in la laayahay meesha inooga timiday waa ehelka meeshaasaan aan shaqada hawsha ka bilownay annagana waa la xiriirnay intii aan hawshaan aan wadnana tilaab kasta ee nagu soo kororto iyo wax waliba oo nagu soo baxo waan la wadaagaynay ehelada balse hadalkooda iyo tiiraanyadooda iyo lama qiimi karo waayo waa waalid oo ii sheegeen laguma qiimi karo inay xun yihiin inaysan yihiin waxaa lagu qiimi karaa kaliya inay yihiin waalid iyo walaal xanuun badan dareemayo arrintaasuna arrin ugubahay ahaaday oo wax hore u dhacay xataa maysan ahayn marka waxaan leenahay xanuunkaas wuuna soo wada qabtay anigana si gaara ayuu ii qabtay sababtoo waxaan ahayn asxaab waxaan ahayn shaqo wadaag mana aaminsani aniga inaanu ii sheegeen ikraan sifa lagu dhibaatay karo oo dowladnimada gudaheeda lagu dhibaatay karo aniga aan ogahay ma jirto waxaan rabaa marka inaan bulshada aan la wadaago inaysan waxa la sheegayo inaysan waxba ka jirin oo marka laga reebo inay gabadhii in la waayey oo la laayahay iyo inay xubin ka ahayd xubnaha firfircoon ay haddana qaabka madaxda nisa ay u wajaheen kiiskaasi macal fahad iyo adigoo markaasi macnaha ragga lagu eedeynay ahaayeen marka aad eegto iyo qaabka uga falceliyeen oo sidii la rabay ma uga falceliseen macnaha hooyada iyo aabbaha waxaa ku fillayd iyo keliya inaad tiraahdaan ood ku qancisaan gabadha meydkeedii xataa in muxuu ah iyo meeshii laga qabtay iyo inaad ku qancisaan arrimaha noocaas oo kalea soo waajib idin saaran ma ahayn sax laakiin horta wadiiqo kasta ee aan u marnay kiiskan waanu la wadaagnay ehelada sidaan ula wadaagayno madaxda qaranka ayagu waxay leeyihin lama wadaagin ayagu waxay leeyihiin cid nabad sugidda ka tirsan oo gabadha markii la waaye na soo wacday ama aan la hadal horta waxaan rabaa kiisku xilliga uu siyaasadda aaday oo buuqa iyo sawaxanka u galay waxaa nagula jirtay oo qayb ka ahayd shaqadaas maxkamadda ciidamada qalabka sida marka waa dareemi kartaa kiis guddi heer maxkamadeeda kiisay qabanayaan lagana riboor garaynayo madaxdii qaranka inay lala socodsiin karo meeshuu maraayo ii sheegeen ehelada waa sax waa lala wadaagay balse inay ku qancaan aysan ku qanceen haddii ay noqoto kiiskii ikraan tahliil
maadaama ay waalidiintooda iyo dadkooda leeyihiin waa ku dacwoonaynaa maxkamad in inta laga furo in muxuu ahay maxkamaddii aada idinkuna ka garbaxdaan ma laga yaaba horta waa mahadsan tahay horta kiiskaasu wuxuu ahaa kiis culeyskiisa wata annagu horta cid aniga wax ii haysatana ma ogeynba shalana ma ogeyn haddana ma ogeyn marka laga reebo barbagandada iyo buuqaysa waxanka waxaan rabnaa horta waxaa laga shaqaynayo haddaanan la fahansanayn dhibaatada ay leedahay anigu waxaan aaminsanahay waxaan ka shaqaynaya waa aqaanaa dhibaato aniga aan geystay ama dad aniga ilamida ay geysteen oon ogaya haba yaraatee ma jirto waxaan markaan isleeyahay kiiskaas wuxuu ahaa kiis dad si qaldan loo adeegsanayo oo la adeegsanayo maahina kiis qof dhibaatada gabadha u geysatay hadday jirto annaga naftigeena shalana diyaar u ahayn inaanu ii sheegeen inaanu ka hortagno welina annaga yaa diyaar u ah waxaan rabaa marka waa ogeeday in shalay hebelaa dilay hebelaa yeelay meelaysu jirin markii laga shaqeeyey kadib in ay maxkamaddu ciidamadu baaritaan ay samaysay hadday tahay xubnihii laga dacwoonayey hadday tahay hay-addii waxay soo saartay statementii iyo qoladan hadda joogtay ma u malaynaya inay ka furi karto kiiska waa mahadsan tahay horta qofku madaxda hadda joogta ama ayagay u taallaa sidii ay u wajahaan hawl annaga noo taallo aniga waxaan aaminsanahay sidii ay ku habbooneed shaqadii habbooneed inaan ka qabta kiiskaas micnaheeda ma ahan aniga inaan dhibaato geystay ama in aniga dacwo laga qabo aniga waxaan aaminsanahay qof mas-uuliyad haya mas-uuliyaddii uu hayay ina ii sheeg dhibaato loo geystay ayaan ahaa maana qof isagu dhibaato geystay iskumaanay arkayn qof hadda dhibaato geysato aan ogahay oo haba yaraatay jirtaana ma jirto waxaan isleeyahay marka cid alaalay ciddii kiiskaas ama caddayn hayso ama xog xoojinayso inay cadaalad inay hesho haysa wuxuu ka furan yahay kiiskaasu feelkiisu dhammaystiran maxkamadda ciidamada qalabka sida wayna furan tahay